Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Bulshaabi Media Production PMP. Maanta meeshan waxaan kusoo qaadan doonaa cashir aad iyo aad u xasaasi ah. Cashirkaas nigama hordhici doono qadar yar oo xayeysiisa. Kusoo dhawaada. aad iyo aad u mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. haddaad ku cusub tahay channelkeena Bulshaabi Media Production PMP, walaal subscribe gareey kambalelkana furo sidaa u noqoto daawashada ugu horeeya barnaamijkeena. maanta waxaan soo qaadanaynaa sidee u badsan kartaa nambarada WhatsApp-ka. Fakta hore waxaad suubinaysaa tilaabooyinkan. waxaad tegaysaa WhatsApp-kayga, fiiri inta nambar ugu jirto 7381 ayaa ugu jirto. lambaro ayaad soo tuuranaysaa, saaxiibka lambaradiisa ugu jira ayaa soo tuuranaysaa. lambaradiisa marka saaxiibka ugu jiro kadib export ayaa dhehaysaa. export markaa dhahdid oo socota. hadda waxaa usoo tuuray contacts gaaraya 722. awal intaa horu weysana waa taqaanaa. weli tuurashadii ayaa socoto, maadaama oo waqti badan oo qaadanaya qaabka markii lambarada soo tuuratid. hadda wuu dhameeyay justii. markuu dhameeyay import ayay noqonaysaa, waa sidaa ujeedid. marka automatically hadda waan ka bixinaa 722daas iyo intaa haysana inay nagu soo darsanto ayaa u baahannahay. marka waxaan tegaynaa WhatsApp-keena. marka qaar waxaa jirto lambarada ku imaan waaya taleefanka la damiyaa, refresh lahaa ama WhatsApp-ka ayaa restore lahaa. macnaha meel waxaa jirto oo laga tago oo restore loo. hadda waxaa raadinaynaa WhatsApp-keena, maadaama waxaan rabnaa lambarada inay noo bataan. hadda waxaa ku dhufanaynaa qaybta oo contacts-ka oo ujeedaa daawada refresh dhahanaa. waa wada imaadeen oo ujeedaa 7,912. awalna tirada noo ahaydna waa taqaanaa. daawada haddaad ka heshay muuqaalkan subscribe gareey, like, comment wixii dhiirigelin aad iyo aad u mahadsan tahay. daawada kusoo dhawaada Bulshaabi Media Production.